nimankii tigreedii way meel bay ku xireen imaaraadkii iyo carabtii meel bay ku xireen al sacuudi cadaankii iyo galbeedkii haysom iyo meel bay ku xireen haatan waxa weya UN-kii iyo systemkao dhan waxay leeyihiin waa inaad laazim usoo gurtaan xamar haddii usoo gurin ikhtiyaar idinkaas kale hawadoodii bay soo ceshteen oo meel kale laga maamuli jiray marka haatan meesha waxay ku jiraan ay galeen xalalna oo maaragtay dowlad kale iska ahayd oo reer galbeedka wax intii la imaado wax la soo gelinayo wax laga bixinayo waxaa nabad sugidda iyo niisada iyo kulli hadda iyo nimankii maxay ahayd revenue collectionkii way dhex galeen waxaa ka socda kulli inay ogaadaan marka horta isbedel baa socdaa xawliga aniga aan jeclaa ugu socdana uma socdo laakiin isbedel baa socdaa qarannimadii ay soo noqon haysa in yaryar ay usoo noqon hayso oo wadamo waaweyn iska daa Ethiopia wadamo waaweyn lagu leeyahay annaga qaranka annaga ayaa waajib naga saaran yahay adigana ima tilmaami kartid oo laga diiday ingiriiska oo laga diiday faransiiska iyo wax kasta oo markay haysma dayacrinayeen wali fahmtay soma marka aniga xiniyihii aan rabay in ay muujiyaan ilaan qarannimada keenta taayada ciidan ma keeno fara badan oo ma keeno wax kasta oo mar badan qaran tahay hadda koorna Soomaaliya ku yiri war Charles de Gaulle oo dhulkiisa la haysto yaa ka adka Winston Churchill iyo ninkii la oran jiray FDR Franklin Delano Roosevelt madaxweynaha Mareykanka ah midna wuxuu prime ministerka Ingiriiska ah wuxuu kaga adka ma ogoli wax la yiraahdo meel laga mari karo ma jiro marka qarankii baa haysta magaciisa oo adduunka soo ogyahay marka international relations ka saaska hadi marka u sii dabagalo midda saddex afraad oo wehelisana waxa waaye tuuganimadii baraarka cadeed oo dhulkii hantidii iyo wixii oo dhanba la boobay hadda meeshii ma jirto ilaahay baa naga sareeyaa laakiin hadda laftirkeeda waxaa jirta mudane hanti fara badan oo qaranku u leeyahay oo la sheego in lagu bixiyo meelo aan munaasab ka ahayn sida in maamul goboleed lagu rido in waxyaalo saas oo kale lagu sameeyo horta aan ku soo dhigeysanaa ku sheegay waqtiga hore waxaa jirtay maamul goboleedyo iska dhaadhiciyay inay iyaga qaranka matalaan oo 5-6 wadan ay noqotay Soomaaliya oo ninka jooga garow oranay maxay sheegaysaa xamar ninka jooga no federalismki revolutionka way adduunka dhan buu ka jira laakiin gobolka unba dakhliga yar waa economic devolution waa xorriyad lagu sii in dakhliga ka soo baxay meesha ay horumarkaasi in maaragtay dadka loo soo dhaweeyay ma aha in aad inta tagtaa wadamo kale dibadda la heshiis oo aankaas oo kala sameeyay in la dagaalamo ku soo oo laga qaado xukunka laga qaado marka in lacag lagu bixiyo way ku saxsiin baad leedahay deysana ku sheegay horta waxyaabo moogto waxa iska jira statecraft oo wadooyinkii laga hadlaaneen ma gartalkii ma wadan adduunka laga hadlana malaha waxay kula tahay dawladda Kenya inayan lacag fara badan hoos loo bixiyo ay bixinaynin national intelligence laakiin Garissa County in lagu soo dumiyo lacag kuma bixin karto sana ku sheegay warshadaana waxaan ku sameeyay oo dhanba kama iimaanin marka dawladda tahay madaxweynaha meesha ku jira aad kama iimaanin shakhsi ashkhas jabkooda kama iimaanin national intelligence ka wadan kasto adduunka la joogo slash funds baa jirta oo qaranka arrimihiisa muhiimka la mariyo waliga tasama oo treasury-ga aan la marin lacagta military intelligence Kenya iyo kuwan national intelligence Kenya NIS ma wala soo mariya baarlamaanka oo ma audit baa lagu sameeyaa ma ta iyada moogtahay ninka waxaan ka maqnay dowladnimada Soomaaliya ka maqnay muddo dheer badan marka wax markii aad ka hadasho saanta lagu fiiray lagu qoslay adduunka iyaga ka dhigaan qarankii hantidii warankii aanka no dowladda waxay qabtaa dowlad kastoo adduunka joogto arrimo iyada khaas weey oo hoos baa jirta oo national interest strategic national interest lagu ilaaliyo sharcigu uu ogol yahay meel kastaba adduunka ka jirta ma la sameeyo audit laguma sameeyo anaga hadda audit laguma sameeyo kasama lacagta mooy markuu xukunku haystay iyo hadda maaldood la qiiminayay markii ay Jubilee soo galeysay anaga audit baa lagu sameeyay maxaa jab qofka imaatay ma jab qofka imaatay wala saxsiin baa leedahay qasab inaad qasab qarankaada aad ku ilaaliso oo jaajuusinta adiga ku soo jaajuusayso ku qorankaada ka soo horjeedaan iyo wax kasta oo dhan ba lagu isticmaalo migarta halkii oo operation dibadaha laga fuliyo Iran contra maxay marka Mareykanka ay dal dagaalamayeen baalki hashish hata way intay gadeen oo drugs is mentioned contra Iran contra magaraysa Iran contra waxay bafir hada Google gare waqtiga Reagan waqtiga yarna haya waqtiga haya
maamul goboleedyada iyo waxaan rabaa Soomaalidu iyo dawladda federaalka xiriirkoodii ma isku jahliga jiro oo fara badan yaan isleeyahay hal fahmo oo halaga Soomaalida aad u aqli badan waay markaad wax u sheegto waan hada social media waxa siito waxaan inta badan ugu dhex jira waxa weeyaan in wax intaan u sheegno oo wacyiga uu koro oo wacyiga uu kordho oo aqoonti ay kobcdo maamul goboleedyada waxa weeyaan hadday isku dayaan inay qaranka lid ku noqdaan oo cadowgii qaranka oo dibadda ay xiriir la yeeshaan imaaraadka waxay la dagaalamayaan qaranka Soomaalida waxay la dagaalameen 77 ka dambeysay Sacuudiga qayb badan bay ka qaateen nimankaas oo dhan haatan Soomaaliya inay kala burburiyaan bay rabaan meeshan bay nala joogaan mukhaabaraadkooda iyo wax kastoo dhan oo lacag la wareegayaan wixii la shaqeynay laazima inaad adigana aad jartaa way gartaa sama wana jartaa wadan hadda intaas ku dayda orod isku day maxay Kenya inaad strategic interest in Kenya aad dhaxgal gasho cadow Kenya maartay is haystaan oo dibadda isku haystaan inaad dhax orod waa lagu waan maalinka dambe iska raafa kale anaa ku sheegay sax waa lagu waan dadka la waayay oo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo kastoo waxyaaba dhaca oo dhanbo waxa qarankii baa la ilaalinaya strategic interest qaranka ma haystaan strategic interest qaranka ataa yes they do that wali ma arag Soomaali ma xsaab committed oo inta kooreysa koon iyaga wali waxaan sii jeclahay in adeeg uu ka sii bato oo markaan anaga is aragno oo isu tagno aniga khayri iyo farmaajo isku tagno dagaal baa naga dhaxay markasta oo dhan ma leeyahay meeshan ay leeyahay ma aan tartiibina waan wadnaay laakiin xawliga farada badan ama ma aragtay anna is leeyahay may ka sii badiya marka waxaan ku sheegi maxamed siyaad bare ilaahay u naxariistay wadani buu هذا عبد الله اسمه ودني بها عبد الشيخ اسمه ودني بها اسمع لكم يا فرح يرجع اسماعيل ابو بكر يرجع سوجي ودني بها على سبت الرمان اللي dadkii baana ku jirin dad aan luqadana soo bartay cilmiga maanta jirina ma jirin aqoonta maanta jirtana ma jirin wareegga ku soo wareegay ma jirin laakiin qaranimada iyo wadanimada waxa jirta wax gooni iyada weey laakiin hadda waxa soo baxay dawladda degree baan haystaale Mareykan baan ku soo noolaa Yurub baan ku soo noolaa Ingiriis baan ku soo noolaa oo dalaalska